مشروعي سنة كي هراء لفري إيد الشالة ده مني عوشة مشروع عاص وحا يعني هي فولية كل مركي هراء 6 شركات وحو مريا بقولك بتضباطا سيدا مركي هراء شيس ككو حسنا لو كن يشان يتوان كان لدمي وها ده مني لا عوشة 40 كيلومتر ويه waxyaabaha dhibaatada ee lagu soo arkay waxaa ka mid ah iyadoo ay dibadda daadsan yihiin tuubooyinkii kuwaas oo gawaarida wadada maraya ay googooyeen godadkii la qoday oo aan la aasin iyo tuubooyinkii dibadda daadsanaa oo ay bulshadu dhibaato badan ku qabaan sidoo kale tuubooyinka biyaha qaada iyo goobaha biyaha laga cabo meelaha qaarkood la iskuma xidhin water pointiyada qaarkood looma samaynin qasabado iyo saacadihii biyaha malaha kaydadku bambis ama booster bambis biyaha maadaama culays badani ka jiro socodka xagga biyaha itaal u yeela sidoo kale idishaale ilaa dhadhamano 14 kilomitir ah kaydadkii iyo water pointiyadii way dhisan yihiin laakiin qaar badan ayaan shaqaynin marka kolley mashruucaas wuxuu u baahan yahay maadaama sanadkii hore uu ahaa waqtigii la furay qayb ka mid ah sanadkan ay ahayd inuu dhamaado inta dhiman ma una dhamaanin dhaliilahaasna uu leeyahay mashruuca biyo gelinta qabri dahar ilaa dalaad dhibaato badan baa markii hore ka jirtay xafiisku laakiin waqti dhaweyd cidii la siiyay oo shaqada wadi weyday shaqadii uu ka kansalay laakiin still dayacaad badan baa ka jirta shaqadii markii hore la qabtay ilaa 2 kayd ayaa loo sameeyay 10 kilomitir kaliya tuubooyinka la aasay 11 kilomitir ayaa iyagana godad loo qoday inta wax ka baxsan oo mashruuca laga qabtay maysan jirin dhanka kale biyo gelinta fiiq xamaro sanadkii hore isna xariga laga jaray laakiin 17 kilomitir oo u baahnaa dayactir in lagu sameeyaa jiray iyadana xafiisku inuu dul istaago oo faahfaahiyo ayaa laga maarmaana cost recovery maxaa ka soo baxa adeegan biyaheenu bixinaan arinta haddii inaan isweydiin hadday noqoto billion ismaan sanad kasta gelinayna biyaha imika ugu yaraan 500 milyan baa ku baxasa shidaalo iyo dayactir waxyaabo fudud oo ay ahayd lacag inoo soo noqotay inay ahaato oo dib loo gelinayo marka arinta maxaa qorshe inooga yeelay inuu sameeynaa ma sidan baa lagu soconayaa 23 ceel oo waxaa jirtay ka soo wareegtay qorshayaashii sanadii hore sanad miisaanadeedii hore oo socday xafiisku wuxuu report gareeyay 19 mid inay dhamaadeen ceelasha way dhamaadeen kale in laga hadha maaha way dhamaadeen biya laga gaaray baa ku xigta hadduu ceelku intuu dhamaado uu dry noqdo hoolaalid bay noqonaysaa ceelku inuu dhamaado in report kale la sameeyo imisa kamida oo biya laga gaaray waxaa jirta shaqooyin magaalooyin laga qabtay laakiinse waxa biyo gelin waxa biyo la isticmaalay coverage aan soo kordhinaynin tusaalahan waxaa kamida biyo gelinta magaalada qabri dahar waa shaqo waa run wakaaladii meeshaasi xoojinteedii shaqooyin loo qabtay baa jirta guryaha loo dhisay adeegyo kale loo soo gaday laakiinse source wise markii la leeyahay coverage baa kordhay waa inuu sourcigii bihi laga cabay uu kordhayo maadaama oo sanadii hore la report gareeyay mashruucaasi markuu dhamaaday oo la yiri mashruucaasi shaqadiisina way dhamaatay beneficiary inta la eg baan ka faa'iideysanaya haddii guri wakaalad loo dhiso ma soo kordhinaysa coverage sourcigii iyo dadku gaadhay waxa kuma soo kordhayaan marka xisaabta halka laga darayo kale waxaan u arkaa inaynan biyo gelin yani biyo coverage ma soo kordhinayso shaqo la qabtay way tahay laakiin se lagu ma report gareyn karo biyo gelin ahaan soo kordhinaysa magaalada kaliya ah aan arkay ee biyo gelinteedu ay dhamaatay inkastoo shaqo sanadkii horeba dhamaatay ahayd waxa weeyaan waa magaalada Shilaabo weeyaan coverage kana 77,000 oo ruux in biyo la gaarsiiyo cusub baa ku taala halka bal in la sii qabsiyo u baahan tahay 77,000 ruux oo cusub oo magaalo ku nool oo biyo heshay baa ku qoran halkan daatada inooga muuqatana meesha kaliya ee mashruuceedu biyo intuu dhamaaday biyo laga cabayo Shilaabo meel aan ahayn oo kale kuma taalo 77,000 ma aha beneficiary Shilaabo kaliya halka in dib loogu noqday u yar baahan tahay dhanka biyo gelinta degmada dhanaan way taagneed hadda ka hor abaartii markii way ka shaqeysiyay xafiiska biyo ka shaqeysiyay laakiin tuubooyinkii biyo gelinta lagu sameeyay dib loo habeeyay banaanka wada yaalan ilaa hadda dadka miyiga jooga iyo carruurta miyiga joogta intay u imaadaan ayagoo shaqeynaya biyaha shanqadhooda markay dhageystaan bay
intay garaacaan un bay duloolinayaan wasiirku maruu noo imaadayna arrintaas waan ka wada hadalnay laakiin weli arrintaasi ma suurtagelin bal maxaa ka qorshaysnaa oo arrintaa in laga qabto ay tahay bari weyn 3 sano ceelkii intii la bilaabay sidii uu taagan yahay waxaan isla qaadanay in ceel kale in lagu bedelo taasna weli lama bilaabin xagga kale gablolu iyo hulbarwaaqo oo biki ah wash program bay ahayd lama bilaabin iyada ceelashaas qodaalkeedii ma bilaabin buskudle iyadana daraasad baa la sameeyay qadaraasli waa lagu wareejiyay wali taasna lama bilaabin xagga carro ay dhibaato ka taagantahay isku dhaca Soomaalida aan farta dhaxdeeda dhibaato ka taagantahay taasi waa calaamad su'aal dhinaca biyo gelinta Shineele ceelashii la qoday ceelkii saddexaad baa saaka la tijaabinaya Shineele oo iyada biyeegi meel fiican si fiican baa loo qoday ceelka Shaygoosh iyo ceelka Wajiwaaji waa la qoday afkeena ka xiran yihiin waana sanadan hadda waxa la qoday ceelka weysha ku yaala asagana 2012 baa la qoday asagana afku ka xiran yahay xagga warbixinta waxa ka muuqatay laba ceel oo la qoday mid waa la qalabeeyay sax laakiin xagga Higlooley ceelka laga qoday xagga warbixinta ku jiray Higlooley dhowr jeer oo la isku dayay baa jiray iyadana wax functional oo laga helay ma jiro waxaa jiray mashruuc weyn oo MDG-ga oo 2006 taariikhda Itoobiya maaragtay mashruuca dhismaha biyuhu wakaaladda dhismaha biyuhu ay sameeyeen oo mashruuc weyn taasoo ilaa 4 ceel oo laga qoday Golaxaajo biyo gelintiisana maaragtay wax weyn la gaarsiiyay ilaa 4 qabale oo qudhacmataanaha adaada Allahago iyo ku bijaaraay kamid ah marka mashruucaasi waa mashruuc weyn miisaaniyad weyn maaragtay mashruuca MDG-gana laga fulinay waana mashruuc maaragtay waxa weeyaan mar la tijaabiyay bal xafiiska biyuhu maaragtay maadaama shacabku baahi badan oo dhinaca biyaha ay u qabaan wax qorshe ama loo hayaa su'aal maaragtay mar walba shacabku taaganna maadaama ay tahay